dhalinyarada ku nool dalka Koonfur Afrika oo ka cabanaya dhibaatooyin ka jira wadankani inta badan dalkani waxa ku nool dhalinyaro ka soo hayantay gudaha dalka Soomaaliya kuwaas oo raadinaya nolol dhaanta tii ay ka soo carreen dhalinyaro fara badan oo waramaya TV-ga caalamiga Royal 24 ayaa u sheegay inay wadankani ku soo sirmeen taasina waxa ugu daran sida ay sheegeen dhibaatooyin ka jira dalkani waxay nasiib xumo ku tilmaameen iyagoo ka sheekeynaya dhalinyaradani dhinaca amniga oo ay sheegeen inay dhib weyn kala kulmaan dadka u dhashtay wadanka oo inta badan waxyeelay ganacsigoodii waxay kaloo sheegeen inay ku fikiraan in la dilaamo in la bawantidooda Soomaalida ku dhaqan wadankani ayaa cawasho u gudbiyay dowladda South Africa balse aysan waxba ka qaban dhibaatada haysata dhalintani waa kuwan dhalinyarada oo sharaxaysa dhibaatada haysata qaysto iyo in dil macna darro ah dadka Soomaaliyeed lagu dilay wiil walaalkeen baawarkeena laga qaatay waxa kaloo kamid ah dadka shariga aad u cabanaya waxa kaloo kamid ah ammaanka wadanka soo xumaanaya iyo dhibaatooyin badan wadaduwo ma markii ugu horeysay dhalinta Soomaalida ku dhaqan wadankani ay ka cawdaan dhibaatooyinka haysta balse ma jirto cid wax ka qabatay cawashadooda Maxamuud Cabdullaahi Xuseen Abokey TV-ga caalamiga Royal 24 magaalada Johannesburg dalka